intaa kaliya kuma eeka hadda waayo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xitaa laftigeeda oo 2009kii argagixisada daraadeed u shaqo beeshayba ama waxqabadkeeda markaa joogsatayba ayaa la moodaa inay ka faa'iideysatay ama u soo kordhisay aqoonteeda hay'adan tikka oo 22kii ama 2022kii ka bacdi u bilowday inay u deeqdo carpeting iyo plumbing waxyaalahan farsamada gacanta iyo biyo mareenka iyo bilaacadaha iyo qalabkii lagu dhisi lahaa iyo sidii loo dhisi lahaa iyo iskuulada loo sameyn lahaaba ayay ku caawisay ayadoo run ahaantii tusaysa xitaa baahida dowladda Soomaaliya inay aad u liidatay ilaa haddana 2022 waxba kama soo wareegin waa 4 sano ka hor dhaawacii gaaray 2009kii ilaa inta ka kici kari weeday dowladda Turkiga oo run ahaantii iyaduna aad ugu farayareysatay waxyaalaha farsamo yaqaannimada sida wax loo sameeyo qacmaha looga sameeyana xitaa u guuri weeday inay dowladdu wax ka wanaagsan u soo diri weeday laakiinse hay'ad yar u dirtaa wasaaradda dhan oo ku dhahdaa waxaad u deeqdin kaliya workshops yar u dhisaan gareeya qalab yarna siiya siday wax u sameystaan taasna waxa laga arkaaba miraheedii inaysan waxba ka dhalinba ilaa hadda Muqdisho markuu roobku soo doo dhulka dhan baa isku daata ilaa hadda biyo mareenkii baa xitaa waxba laga sameyn karin laayeen ilaa hadda suuqa waa laga arkaaba inay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada aad howsheedu u liidatana taasna waxa weeye dowladda Soomaaliya ay toos u qaadan karto laakiin san ogaataa inay Turkidu iyo ku taas wax badan ummadda Soomaaliyeed uga qabanba